nabadee daawadayaal halkan waa janalka Hubaal News qodobada wararka daawad doontaan waxaa kamid ah Ra'iisul Wasaare Xamse oo amar culus soo saaray iyo faahfaahin ka soo baxay wadahadal uu la yeeshay lafta Green beesha mudulood oo si adag kaga hadleen arrimo ka taagan magaalada Muqdisho iyo Hirshabelle oo soo bandhigtay khasaaraha hantideed ee ka dhashay qarixii gilgilay magaalada Jowhar qodobadaasna waxay ahaayeen kuwii ugu waaweyn warka janalka Hubaal News fadlan daawad dad janalkan ku cusub tahay qayb ka noqo saaxiibada ku xiran ee ka hela wararka joogtada aan halkan ku baahino aragtidiina halka uu noogu reebo muuqaalkan uu si share gareeya saaxiibtiina laagtiina waa inoo dhiirigelin haatan ugu soo dhawaada qodobadaad maqasheen oo faahfaahsan Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Soomaaliya Mudane Xamse Cabdi Barre ayaa war ka soo saaray xaaladda gobolka Bakool kadib markii deegaano ka tirsan gobolkaas ee xoogaga ururka Al-Shabaab ku weerareen ciidanka iyo booliska amarka Ra'iisul Wasaaraha ayaa waxa uu ka dambeeyay kadib markii uu khadka taleefanka kula hadlay madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Green oo warbixin ka siiyay deegaanada ay kooxuhu ka geysteen falalka argagixisada wuxuu si gaar ah Ra'iisul Wasaaraha u soo hadal qaaday deegaanada Yeed Washaaqo iyo Aato oo ay saddex jiho ka weerareen ururkan hubeysan ee Al-Shabaab oo halkaasi kula dagaalamay ciidanka liyu booliska ee dowlad deegaanka Soomaalida iyo Itoobiya Xamse Cabdi Barre ayaa ballan qaaday in dowladdu ay jawaab degdeg ah ka bixi doonto ee dhibaatada ay geysteen Al-Shabaab si looga hortago weerarada ay ka fuliso dalka sidoo kale wuxuu amray hay'adaha kala duwan ee amniga iyo gargaarka inay si degdeg ah uga jawaabaan xaaladahan adag ee haatan ka jira gobolka Bakool ee koonfurta Soomaaliya dadka ku nool deegaanadaasi waxa ay sheegeen in dagaal culus ay soo qaadeen kooxda Al-Shabaab balse waxaan ilaa iyo hadda la ogaan khasaaraha ka dhashay afayeenka kooxda Al-Shabaab Cabdicasiis Abu Muscab ayaana sheegay in ay qabsadeen Yeed iyo Aato balse sheegashadiisa lama xaqiijin karo waxaana aad u yar xoogta laga heli karo deegaanadaasi isgaarsiinta deegaanada ayaa go'an waxaana dagaalyahanada kooxda Al-Shabaab dagaalkan ku ekeeyeen fariisimo ay ku sugnaayeen ciidamada liyu booliska ee ilaalada ka ah xuduudaha iyo badqabka wadooyinka kuwaas oo hoostaga dowlad deegaanka Soomaalida iyo Itoobiya dagaaladan oo xalay bilowdeen sidoo kale la sheegay in maanta ay ka dhaceen isla aaga deegaanadaasi ayaa la warinayaa inuu jiro khasaarooyin lixaad leh oo ka dhashay kooxdan weerarka qaaday Al-Shabaab ayaana la tilmaamayaa inay xoogooda iskugu geeyeen si ay uga tallaabaan deegaanada xuduudda gaar ahaan kuwa ku beegan gobolka Afdheer ee dowlad deegaanka Soomaalida waxaana la sheegayaa inay wataan dareen ka duwan kii argagixisnimo wuxuuna damacooda muujinayaa dareen ka duwan kii argagixiso oo hore caado ugu ahaa isku dagooda ayaana ku wajahan sida xoogaha hoose ay tilmaamayaan inay gaaraan dhul buuraley ah oo ku dhow deegaanka Ceelkari ee gobolka Afdheer taa ayaana keentay in halkaas uu ka dhaco dagaal khasaarihiisa ilaa iyo haatan aan la xaqiijin madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Mustafa Cumar Cagjar ayaana dhankiisa gaaray magaalada Goday si uu la socdo howlgalkan gobolka Afdheer ka soconaya ee ah mid dagaal una dhaxeeya Al-Shabaab iyo ciidamada liyu booliska sidoo kale dhankooda waxaa la filayaa ciidanka dowladda ay ku biiraan dagaalkaas kuwaas oo la sheegay inay dhabarjebin ku sameyn doonaan kooxdan Al-Shabaab ee weerarka ku qaaday deegaanada dhaca dhanka xuduudda geesta kalena beesha mudulood go'aano culus ayay ka soo saareen magaalada Muqdisho xildhibaanada iyo odayaasha dhaqanka beesha mudulood ayaa kulan ballaaran oo iskugu yimaadeen waxa ay kaga hadleen xaaladda ammaan ee magaalada Muqdisho gaar ahaan dhibaatada ay ku hayaan ciyaal weerarada xubnaha kulankan ka hadlay ayaa soo jeediyeen in go'aan degdeg ah laga qaato kooxaha ciyaal weerarada si wax looga qabto dhibaatada ay ku hayaan dadka iyo deegaankaba xildhibaan Maxamed Axmed Beerey oo ugu horeyn madashaasi ka hadlay ayaa sheegay in ujeedada kulankooda uu ahaa sidii wax looga qaban lahaa dhibaatooyinka la soo daristay shacabka Muqdisho isagoo tilmaamay in maalintii lagu dilo ugu yaraan 5 ilaa 10 qofood annaga deegaan aan leenahay meelo aan ku noolnahay ayaa jirta dalku Soomaali oo dhan waa uu ka wada dhaxeeyaa laakiin qolo walba meel ay degan tahay dhibaatooyinka sidan gaarka u haysta deegaanadeena maanta inaan wax iska dhahno ujeedada saas ay ahayd oo ay ugu horeyso magaaladii caasimadda ahayd oo la mari laayahay oo maalin walba tiro u dhaxayso 5 ilaa 10 qof ay ku dhimanayso mindiyo iyo xabado iskugu jira ayuu yiri Beerey dhankiisa Yuusuf Ibraahim Afrax Kabaale oo kulankan hadal ka jeediyay ayaa sheegay in xaaladdu ay gaartay meeshii ugu xumeed isla markaasna indhaha aan laga qabsan karin waxay joogi jirtay waxa la dilay qof
yaa dilay koox bastoolada ku hubeysan aan heebtooda la garanaynin. maanta waxa ay taagan tahay koox tooreeyaal ku hubeysan aan heebtooda la garanaynin ayaa dadkii dilay, ayuu yiri Yuusuf Ibraahim Afrax Kabaale. sidoo kale wuxuu intaas ku daray in ciyaal weerada xitaa ay dileen wiil uu isagu adeer u yahay isla markaasna aan waxba laga qaban. waa sidoo hadalku dhigay. hadda habeen dhaweed wiil yar oo aan adeer u ahay kaaraan ayay ku bireeyeen oo arday ahaa, cid looma hayo, ayuu sii raaciyay hadalkiisa. ugu dambeyntii mid ka mid ah odayaasha dhaqanka oo gunaanadkii shirkan ka hadlay ayaa sheegay in arrintan looga gudbi karo wadatashi iyo in laga wada shaqeeyo amniga caasimada Soomaaliya. waagaagay daawadayaal, iminkana waxaanu eegaynaa maamulka Hirshabeellena waxay soo bandhigeen khasaaraha hantiyadeed ee ka dhashay qaraxii Jowhar. madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle Cali Cabdullaahi Xuseen Gudlaawe oo uu weeliyo madaxweyne ku-xigeenka maamulkaas Yuusuf Axmed Hagar Dabageed ayaa waxa ay shir gudoomiyeen kulan golaha wasiirada Hirshabeelle yeesheen. shirka golaha ayaa warbixin looga dhageysta guddiga gurmadka qaraxii 17 Julaayo ee ka dhacay magaalada Jowhar, iyagoo soo bandhigay macluumaad ee ka aruuriyeen baaxadda iyo saameynta khasaaraha u geysta qaraxaasi. guddiga ayaa madaxweynaha iyo xubnaha golaha la wadaageen in guryo iyo hanti badan oo dhextiilay guryahaasi ay ku baaba'een qaraxas. waxayna sheegeen in hantida burburtay oo ay diiwaan geliyeen ee ku qiimeeyeen ku dhowaad 2 milyan iyo bar oo dollarka Mareykanka. madaxweynaha ayaana sidoo kale warbixin xaaladaha guud ee dhanka abaaraha ka dhageystay wasiirka wasaaradda gargaarka iyo maareynta musiibooyinka Hirshabeelle, iyadoona wasaaraddu ay soo bandhigtay documentary muuqaala oo ay kasoo diyaarisay baaxadda abaaraha ee ka jira deegaanada Hirshabeelle iyo sida ay u saameysay dadka iyo xoolahaba. madaxweynaha iyo golihiisa wasiirada Hirshabeelle ayaana wasiirka wasaaradda maaliyadda iyo horumarinta dhaqaalaha sidoo kale ka dhageysteen barnaamijka istiraatiijiyad kordhinta dakhliga Hirshabeelle. xaalada adag ayaa ka jirta deegaanada maamulka Hirshabeelle, waxaana ugu wacan inay yartahay isku socodka deegaanadaasi. iyadoo taa ay jirto ayaa haddana waxa uu sii dheer waxqabad la-aanta maamulka dhexdiisa. shacabka Hirshabeelle ayaana siyaabooyin kala duwan u dirar qeelandhaan ku aadan xaaladan ka taagan deegaanada maamulkaasi oo ay ugu horeyso waxqabad la-aanta maamulka. iyadoo taa ay jirto ayaa haddana waxa uu sii dheer qaraxyada khasaaraha dhalinaya iyo xaaladaha kale ee dhanka abaaraha ee ka jira deegaanada maamulkaasi. magaalada Jowhar oo ah xarunta fadhiga oo ay Hirshabeelle ayaana jirin dhaqdhaqaaq iyo horumar laga sameynayo magaaladaasi, waxaana ku shaqeeya dhammaan maamulkii, mana jirto ilaa iyo haatan wax horumar oo laga sameeyay magaaladaasi iyo deegaanada kale ee Hirshabeelle hoostaga. dhaliisha ugu culus ayaa loo jeediyaa madaxda Hirshabeelle oo xukuumadooda ku dhameysta isqa qabsi ka dhex jira dhanka beelaha qaar. Cali Gudlaawe oo hadda u muuqda inuu dardar gelinayo howsha maamulka Hirshabeelle ayaa waxa uu bariyay ugu dambeeyay shaqo adag ku waday magaaladaasi, lamana oga inuu wax badan ka qaban karo dhaliisha loo jeedinayo maamulkiisa ee ku aadan waxqabad la-aanta, waxaana maamulkaas lagu tilmaamaa kan ugu liita ee dowlad goboleedyada ka jira gudaha dalka Soomaaliya. guud ahaan daawadayaal wanaga intaa warkii oo aad kala socoteen janalka Hubaal News. fadlan daawade haddaad nagu cusub tahay janalkan qayb ka noqo saaxiibada ku xiran, aragtidiinana halka hoose noogu reeba, muuqaalkana la sii wadaaga asxaabtiina, laagtiinana waa inoo muhiim, waana ku mahadsantiin daawashadii la socodka warka janalka Hubaal News.